Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta maanta halkan waxaa idinku hayaa Arduino oo ka sameeyay raadar yar anigoo isticmaalaya processing language programming iyo ultrasonic sensorkan iyo Arduino Uno. Intaas oo kaliya ayaa project yar maanta ku saabsan yahay iyo servergan. Marka qaabka u shaqeyso waxaa waaye ultrasonican ayaa wuxuu dareemayaa inta distance loo jiro isagoo macnaha sida raadarkii u wareegeysanaya 180 degree bidix ilaa midig. Sidaa ujeediinba hadda wuxuu sheegayaa macnaha 34 centimeter 31 35 centimeter 34 centimeter waa loo jiraa distancega. Markaas guud ayuu noqonayaa kan ujeediin. marka projectgan iyo ciddii xiiseynayso waxaa la idinku hayaa meeshan faahfaahintiisa, koodkii, programmingkii iyo waxyaabihii aan u isticmaalay oo dhan. Please share and subscribe my YouTube channel. Daawasho wacan hadda waxaan idinka rajeynayaa Soomaaliya idinna inaad idinkana sidaan oo kaleeto aad noola wadaagtaan waxyaabihii aad haysiin. haddana xoogaa daawasho wacan qaabka u shaqeynayso iyo 180 degree. Sorry xoogaa yar ay jag leedahay, taasna waa fiilooyinkan gadaal uga xiran. Fiilooyinkana xoogaa fiilooyin adag ah oo loogu talagelin, fiilooyin aad u jilcan oo la laami kara ay ku fiicneed, laakiin for now is okay. sida ujeedin waxaan isticmaalnaa processing language. Processingka waa luqad aad u sahlan marka la programinayo, si sahlan ayaa loo programin karaa, si sahlan ayayna u shaqeynaysaa. Sidaa ujeediinna waxyaabahan linemankan degree intaasoo degree 150 120 90 60 30 ilaa 0 degree. dhankan kaleetana ilaa 150 150 ilaa 180. marka sidaa ujeedin angalka xataa inta ayaa laydinku sheegay, intaas degree ayaa leexatay, intaas macnaha intana waxaad uga jeediin object out of range iyo in range. In range macnaheedu waxay tahay shay ayuu arkay sensorka, out of range-na waxaa loola jeedaa macnaha waxaa ma arkin sida green markii wadato oo kale. waa macnaheedu waa safe waaye, xaaladdu waa degantahay, waa macnaha wax cilada jira ama wax u dhow. Distancega inta ayaa laydinku sheegayaa. Sorry inta hadda 28 31 34 uu fahmi waayey sababtoo ah aad ay u fog tahay. waxaa lama hayo waa macnaha 30 ilaa 34 ayaa shayga ugu dhow joogaa. sidoo kale waxaa ka arki kartiin inta gidaar redka meel ku bilaabanayo shayga meesha wax yaaliin ilaa inta ilaa daawasho wacan akhyaarta. mar kale haddaan idinku celiyo waa ultrasonic sensor iyo serverka yarka iyo Arduino Uno. Arduino Uno wax kale ma aha, waa micro controllerkan yarka kaasoo 18 mega loo yaqaano. iyo sida ogtihiinba microcontrollerada waxaa ku jira ePromise waxyaabahaas. memory ayay leeyihiin, waa la programmin karaa. sida aad rabtid inaad u shaqeeyaan ayaad u amri kartaa, ay kugu shaqeynayaan. ultrasonic sensorka isagana waa 2 xabo ayuu leeyahay, input iyo output. outputka macnaha waa kan transmitter, wuxuu dirayaa macnaha signal cod aysan dhagaha bini'aadamka maqli karin. codkaas shayga ayuu ku dhacayaa, shayga markuu ku dhaco codkii ayaa soo laabanaya qaybta kaleeto ee receiverka ah ee ultrasoniga ayaa codka usoo laabanaya. sheekadana markaas waxay isku bedeleysaa physics sound. sida ogtihiinba codka speed of sound ayaa jiro, codkii macnaha intii uu maqnaay iyo speedkiisa ayaa la yaqaanaa. markaas waxaa la helayaa distancega shayga macnaha inta uu ku jiro